markii uu ku duulay Genghis Khan magaalada Bukhara uu awoodi waayay inuu kala magaalada inkastoo uu in badan cunaqabateeyay kadibna fariin ayuu u diray dadkii magaalada isagoo ku leh qofkii dhinacayaga raaca waa amaan lamana taabanayo. laba kooxood ayay u kala baxeen dadkii magaaladu, qayb diiday inay isdhiibaan iyo qayb ogolaatay inay isdhiibaan maquulkana raacaan. Genghis Khan ayaa mar labaad u soo qoray fariin, intana raacday waxaan leeyahay haddii aad nagu caawisaan la dagaalanka intana diiday magaalada idinka ka talin doonaa oo waanu idin dhaafi doonaa. way aqbaleen khaa'imiintii waanu hubeeyay amarkiisii ayaanay kula dagaalameen walaalahoodii ay magaalada wada deganaayeen. dagaal culus ayaana dhex maray walaalihii halka ciidankii maquulku ay daawanayeen. ugu dambayntiina kuwii khaa'imiinta ahaa ee waddankooga iibiyey ayaa guulaystay, kuwii difaacayna way jabeen. balse layaabku waxa uu noqday inuu Genghis Khan ka ururiyey hubkii amrayna in la gowraco gebigoodaba. haddaba kuwii caawiyey kadibna waxa uu kelmadiisii caanka noqotay ee ahayd haddii la isku halayn karo umay khiyaameeyeen dadkoodii dalkooda annaga dartayo annaga oo ajaanib ah. ilaa maantana khiyaamada ay walaaluhu iskula kacayaan ajaanibta ayaa ka faa'iidaysataa.